أكرم سويتيز waxaad ka helaysaa macallimiintoodu sarreyso keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada waxaan meesha ka marnay noocyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food kuwaas oo haddii aad mar dhamiso aad u xiisi doonteen dalba hadda oo nagala soo xiriir ibril xalshan 63 أكرم سويتيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيدة أدنى لهذا وحنا كنا ولا سويدن. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. oo faraxsanayna ku arkado qurxan oo caafimaad qaba sidoo kale baa jiro jooga baayo جمال ay sheegay in ay la kulantay in rabtay waxaan islahaa yaraantaadii wax badan aad ka ogaatid si ay kuugu fududaato raadinta reerkaada. Jamaal waa u sheegay magaca siduu kuugu baxay iyo waaga sida ahayd. Sax aniga buu ii sheegay laakiin aniga islahaa ama wax kale soo xasuusatay oo ay kula wadaagtaa waxaan rabay inaan wax ka ogaado maanta ugu horreysay Abu Taali ka keenay. يا واينا فرواني يقفروا دعاء واي دعاء ها maxay tahay socota ducaalo baabuurna ma wadida maxaa ku qaxina cuntaana maxay ahayd baabur imaado weydiiseen wax dhacay dad u tahay carruurta carruurta gudaha ku jiraan magaalada iyo xaaladeeda iga sheekeen balse wax u jiraan wax laga sheekeen kara ma haye xabad iyo qaxa iyo wareerka socda ogaan leey xaafadii dhinacan dhan waa laga soo qaxay madfac iyo wax dhacay dad arkayaa si qeyr laan aniga ilaahay bixiyo cunugtaan yaro meel cidla loogu kala keenay soo xid كلية سويس كلية والله نعبان بدنا إن الله رجال هاي مسكين معان وحرادنا وحملها سعدي وحوم صار كنا ما فيري وحاس ما أركني فقد إنه ميالي أنت سقرح هذا نقول عن أما دجالك دب وسموه الله بخير وهذا هو دومين مال لقى بحيمة حتى عم بحنينا كده حنكو بحنا بابور بنوم ودير دعالو حنكو بحنا وحنكو بحمل ربو وهذا والوينينا oo ilmeena gacmaha qabsanaynaa wax alla wixii fudud oo qaadi kartid markaan qaadanay ana waayahay u kaadi ilmaha aan badar siista aan u dhaqdhaqdo guriga Maryan ma dhawa maadaama aan lugaynan ilmaha wax siisanayna kaalo hooy xirsiyo Jamaal kaale Jamaal soo bax kaale hista kabihiina hooy aaba ag fadhiistaya raashin yar adin soo guray inta fadhiista halkaan ay fadhiisto hooy gabadha yarna walaashin waayaahe waxaas ma jiraan soo bax wax alla waxa gacanta ku qabsan karto ku soo qabso war ma haysin war la yaa tahay wax kale oo soo noqonay wax alla waxa heli karto soo qabso ina keen soo bax Jamal kaal xirsiyo كان حرت عند قبصة بسم الله الرحمن الرحيم هذا فرق لا باب عنق بقى عند قبصة عنق عند يجي قبض حاضر بسم الله هذا الله قرمي يقول رسم maalmii hore waad ooyin jirtay markaad daashana waad seexan jirtay haddii wax lagu weydiiyana waa ooyin jirtay sidaas darteed waa la iska kaadaan jiray si aad u xasisho hay magac haboonne sidoo igu baxay aniga kuu bixiyay waayo aniga xirsi iyo Jamaal haysta oo aan wax gabara dhalin ayaad adiga reerka ku soo biirtay waana ku habooneed inaad nagu soo biirto ducaalana magacaaga uu ku qancay walaalkay guuleed
ayaan kuugu magac daray si aanan laguu dhihin gabadhan reer ma laha. dagaaladii kadib sidee wax ahaayeen hooyo? colaadihii way dhammaadeen, waa la soo noqday. kadib reeraha qaar dibadahaasi iska aadeen, wax sidii hore ku soo noqdayna ma jiraan. ma jireenna wax baafina oo aada samayseen xilligaas? haa, inkastooda adiga aadan hadli jirin, laakiin annagaa baxnay, dariskoo dhan ayaan u sheegnay inaan gabar soo luntay hayno. markaa yareed waxaa lagu dhihi jiray gabadhii soo dhuntay, laakiin waqtigaas wixii ka dambeeyey annaga xaafaddaas waaban iskaga soo guurnay. waagaad soo luntay adiga waxaa jira dad waaweyn oo la baafinayo, nolol iyo geeri midna aan lagu hayn. intaas kadib sidee wax noqdeen hooyo? reerka waad la qabsatay, ducaalaad iska ag fadhin jirtay. haddii uu wax cunayaad la cuni jirtay, hadduu baxo waad ka daba ooyin jirtay, albaabkaad ku sii sugi jirtay. markaad yareed dadka asagaad ugu jeclayd. ducaalow, habboon ma aragtay? maanta oo dhan meelahan ay meeraysanaysa ee maxaa dhacay? maanta oo dhan inay afkeeda wax geliso waa diiday. fiiri, cunugtaas wax alla waxay cuni kartaa loo kariyaa, waxay dalbatana loo sameeyo. habboone qolobkaana gashaan umaleyna. habboon waa ka dhuumatay ah. maxaa ku dhuumanaya hooyo? wixii intaas ka dambeeyey waxay ahaayeen maalmo isku wada eg eg, wax badan kama xasuusto. intaas wixii ka dambeeyey anigaa wax badan ka xasuusto. waxaan xasuustaa inaan ahaa dadka qofkaad igu jecleed, oo wax walbana aad iga hormarin jirtay, mar kastana aan dhabtaada ku hurdi jiray, oo weliba aad i ilaalin jirtay, xitaa haddii aan xanuunsadood i cabsan jirtay. maalin maalmaha ka mid a waxaan ku fikiray habboon reerkeeda inay imaanayaan. waa arrin lagu farxo, laakiinse waxaan ka cabsan jiray maalin uun habboonteyda in layga wadanayo. intaad yareedoo dhan waxaad ahayd guriga farxaddiisa, laakiinse markaad weynaatay waxaa soo batay su'aalo aan jawaab loo hayn. wax badan waa iska dhaga tiray, laakiin markii aad adiga iyo Jamaal isku soo dhawaateen waxaan ka cabsaday su'aalahaas in la weydiiyo. kadib waxaan qorsheeyey wixii aan sameeyey aadaan uga xumahay, ii raalahaa. hooyo, aniga weli habboontaadii nahay, mana jirto cidday kaa qaadan karto. habboonna nolosheeda meel walba ayaad ugu jirtaa. Jamaala wuxuu yidhi reerkeeda in la helaa loo dhow yahay, runtiis miyaa? haa, shalay meesha ay wax maraayeen maanta way ku dhow yihiin. waayo maxaan kuga caawiyaa oo jeceshahay? hooyo, mar walbaan qarabkaaga u baahanahay. caruur maa ka weynaadaan hooyada caawimaadeeda. haddii la nool yahay wax walba way hagaagayaan. cumar yare iskuul uu jiraa. maalin wanaagsan. wanaagsan oo aan ii warana bay habboon. fiican aboowe, xaafadda hadda ka imaado waxaa lasoo sheekaysanaya hooyo amrina isnahaan. wallaahi maasha allah, maalmaha warar ka farax badan ma maqlin. in markaasna fariisiye.
hooyo si fiican aan usoo sheekaysanay waxayna ii sheegtay waxyaabo badan aan horay u ogeyn ay ka mid tahay maalintii ugu horeysay oo Abuducaale xaafadii keenayay wallaahi dagaalana guriga maanis ma soo sheegtay ilaaheena soo ma ogid inaad tahay qofka ugu badan aan la kulmo ogaa laakiin markasta waqtiga guriga ka shidan صح أبو waxaan rabay hoogaa Jacfar inaan wada hadalno ma igu wici kartaa Jacfar abaan maxaa jira maama ma soo laabanaysa Jacfar iyo wax ma jiro maya aboowe wuxuu ii sheegay asaga gabar walaashiisa in dagaalkii uga dhimatay ana marka waxaan islahaa xoogaa wada soo wareysataan okay hadda kuwa Jacfar abana ku adeegsado ordada kooshana ka qabanayo abana satan maxaa waxaan rabay inaan ku weydiiyo reerkaaga adiga ma u weyn mise reerka anaa u weyn anana u yar reerka dhan waa cid aamino aabo iyo aniga warnaa idinka maxaa idinka khaldan haddeeraa soo baxay komishin marsan doonan kara miya ciise aamino ifrax weydeed sax ifrax weydeed aduu waxaan rabay eedadaa inaan la kulmo mala kulansiin kartaa laakiin maxaa u rabtaa mid aniga ula kulanto wax weyn ma jiraan waxaan raba keliya inaan la sheekaysto sababtoo ah ayadan dagaaladii kuweysa gabadheeda ana reerkeygaan ku waayay waan ka xumahay Jacfar waxaan umaleynaa maalmahan waa ku dhibay iga raali noqo may dhib ma lahan laakiin aaba ma jecelo in soo xasuusiyo cid aamino gabadheeda sabab muxuu diidaa ifrax markay dhimatay ifrax hooyadeeda kasii marweeyey waana ku xanuunsatay aabana wuxuu dareensan yahay inuu qalad ku leeyahay dhimashada ifrax waayo markay kala tagayeen ifrax oo ka reebtay waayo haddii saas taa walba aabbahaa mala kulmi karaa haa waa caadi arrintaada ogyahaaba maalintii DNA-ga ugu sheekeeyo haye goorma ii geeni caawa marka xaafad tagaan u sheegaa kadib anaa kusoo wacay aada u mahadsantaa abuu adaa mudan abaan haade shacabis hooyo adigu duq ma isku malaysaa weli waa yartaa yaraan ma jirto jilbahaaba ka kicilaaha hooyo waxaa u maleynahay fadhiga badan inuu yahay marka dhib ma leh hooyo birana soo logeysiina insha allah horta jamaal ma yimid jamaal hooyo wallaahi ma ogi ma maleynayo hooyo abuu jamaal qolka ku jiraa oo muxuu ii soo mari waayay ma ogi dabiin haye bulooni lugta la weynaysaa dhulka darbeene xesiyow saxaabata markaa yareed bulooni ciyaari jirine maxaa qaban jirtay bulooni ma ciyaari jireen saabil barshana wadan jiray weliba waxaan ahaan jiray difaac uga adkaa ciyaara ku jirta nagada saaxiibow jamaalo kaayra dharku weyn jirtay hooyo waryaa xirsi wariyadaa wiilka waa runtiis banooni ma aadan ciyaari jirinay daano saxaabada waryaa maxaa dhac xirsi xirsidamin aniga ay maareen marka ka tusayna sida ay yeelayno si u soo qaadaysa haddii aysan baawar qaban karin anaa beri imaanayo dawooyinkiina soo qaadayo haddii ilaaha idmo waxay cunto caawa ma lagu dayay bal waaya waxa dhib ma jiraabo ha iyo xanuunkeeda inuu sii siyaada la soo sheegay hadda waa sidee marka xaaladeeda
والله هو xaaladdeeda waa soo aruurtay waxaana ka cabsanaan oo ka maqan inay dhimato waa garta jacfar dee laga bilaabo safarana eedada adigaa u helo way ogtaa aabo ha ka soo daahin guriga inta aadan imaanin ka hor wixii looga baahan yahay hore u soo qaad hana iwelwelin inta aan maqanahay أروح بالمسكين اللي كرام النساء يا رجل الحاسة قال لي صاحب هذا دواء ماضي هذا وحس ده مركو هوي وقال سوسة لانك دي بنسك الساحة نيو حاربنا كل شيء جو هبوان maalmahan wixii lagu badatay coffee shopka lagu soo laabataa adii mis aragtaan ayadii iyaaba marka imaado ayada keligeeda waxay u danaysaa inay wareysato wiil yar asla shaqeyno maxay ka wareysanaysaa marka wiilku wuxuu u sheegay inay gabar kalunta xilliga dagaaladii kadibna loo soo sheegay inay dagaaladii ku dhimatay marka haboonna way ka wareysanaysay gabadha iyo reerkiisii meeqa jeer camal la kulantay adiga markasta imaato way la kulantaa badanna way imaatay adiga maxaa kaaga baxa marka maxay kula tahay wallaahi waxba laakiin maadaama ay raadin ku jirto waa suurtagal inay qof kasta wareysato waxaa laga yaabaa inay isleedahay reerkaasi arrimahooda wax badan ka ogaabiyo gabadhooda hay jamaal abay wanaagsan ay saxweelma كورن هدا اوغاتو gabar si xad dhaaf ah ku jecel oo jecelkaaga aad u il daran maxaa sameyn lahayd waxaan u sheegi lahaa inaan gabar jeclaa xitaa haddii aan waayo waxaan noqon lahaa boodharga cusub هاي دب ملان أبو جعفر ما هتسند habboon saak maxaa ku abristan والله waa maalin kale oo shacnigeeda wadata habboon maxaa kugu dhacaysay ma taqaanaa yarka jacfar loo abuu xirsi kafeteeriyada kala shaqeeya aqoontaas ay ma jirta hee wuxuu ii sheegay gabar asaga la dhalatay in dagaaladii lagu waayay oo haddana lagu tirinayo inay dhimatay haye iibad waa kula socdaa aniga waan baxay kafeteeriyadan tagay si aan jacfar ula kulmo teyda abuu xirsiyaaba uga warama asaga isna tan walaashiisu iga soo waramay haye meeshaas maxaa kaaga bax marka xaafadda ee ka soo luntay gabadhaas jacfar la dhalatay oo lagu tirinayo inay dhimatay haa oo lagu tirinayo inay dhimatay iyo xaafaddii aniga aan ka soo lumay oo Abu Ducaale iga soo kaxeeyay waa hal xaafad habboon jirkaduna inta waa xanuun taas haddana waxaaba sii dheerbo
magaaladan dagaalo badanaa ka dhacay hibo anigana markii aan u kuurgalay hadalladan kala duwan oo isoo gaargaarayo waxaa ii soo baxday inay isleeyihiin xilligii aniga aan soo lumay iyo xilligii walaashiis luntay ama ay dhimatay haa axmed xilli fiicanaa timaada xilli kastoo anigu ku jira ayaa iska fiican aboon subax wanaagsan axmed wejiyadiina wax sidan ka dhigma ii sheegaysiin mise waa idin weydiiyaan axmed jacfar mintaqaanaa yarka oo xirsi la shaqeynayo aqoon saas oo mali gabar walaashiisa oo lagu waayay dagaaladii ee habboon islahaadeen xilligii iyo xaafadii ay kasoo dhintay taas micno weyn ma samaynayso markii loo barbar dhigo waxyaabahan soo marnay laakiin habboon dareenkeena inay fiirino soo maahan habboon way ku haweyn tahay inay arrintaas kasal gaarto habboon maxaa natiijo lagu gaari karaa sameynaa anigu waxaan rabay jacfar aabiis inaan la kulmo laakiin wuxuu ii sheegay saakadanba safar degdeg inuu aaday okay qof aan aabbahan la kulmayo ma jiro miya hooyadaa joogto ayadana waaba la diidan yahaba arrinkan lagu soo hadal qaado jacfar kiyaa dhala isaga jacfar waxay isku aaba yihiin gabadha dhuntay ama dhimatay hooyadiisna way dhimatay adna waxaa is leedahay gabadhaa samata haa taasoo ka dhigan jacfarna wuxuu noqonaa walaalkaa oo isku aabatihiin haa maamada laga qarinaya arrintan oo in lasoo xisiil diidan yahayna hooyada ay noqonaysaa haa axmed hadalka tirada badan soo koob sidee maamadaas DNA lagu marsiin karaa ayadoon lagu soo hadal qaadin waxyaabaha hore o dhan wallaahi maadaama uu aabbaha baxaybo meelaan wax ka bilaabo ma aqaana axmed kabarna hadaa jacfar u dirno waxyaabo aan baaritaan ku samayn karno inuu maamada noo keeno afkeygaa kala baxa jacfar waa inaan kula laabana sheekadan أنا حيلته أنا سجنتك صلاة وأنا جعفر أبيسي ساكر دوب حق هرم صلاة أنكره لا ما قان لكن صلاة ودون عليه kawaran jacfar haddee habboon iyo maamada kulmaan waxaa macquul ah sidaa wax filiis maana si kalaantiina waxaas eedida ma soo hadal qaadi karo weliba soo aabay maqan yahay teed kale waxaan dareem waa degdeg fara badan maxaa muhiim ka dhigay habboon iyo eedina kulmaan جعفر مركا قيماني sheekada walaasha Afraax iyo tan Habboon xilal noqotay inay hal qof tahay shakigan wuxuu ka yimid Habboon sorry Jacfar waxaan kula imaado ma aqoon ilaa ay haddana shaki leh ku socdaa wax la hubo maxaa Jacfar please hadi fariisis DJ isbarbar dhigna ku sameey sheekada walaasha Afraax iyo Habboon soo kulma ahaan oo isku mid yahay sidee laakiin walaashii Afraax way dhimatay walaasha inay dhimatay cadeen karo dabcan waa lagu sheego kaliya sax laakiin teeda kale magac walaashii Afraax waa Jacfar Habboon magacaas hooyadii oo bixisay ciida xataa matqaana magaceeda runta ah Jacfar sidaad ogtahay waa aniga reerkaygaan raadinayaa waxaan macquul ah xitaa sida aniga wax u malaynaa inay waxba u jirin waxba ku baryaa halkaa mar arrintaa inaa hubay miga caawin kartaa please sidee maamada isbitaalka loo keeni karaa iyadoon noo sheegin wax DNA laga baarayo taas suurtagal ma ahan laakiin aniga way dhibaysaa waalidiin carruurtooda ka maqan tahay intaan rajo geliya hadhow inaan ka dhaqaajiyo ayagoo murugaysan arrintii Habboon sheegayso iyadoo la ilaalinayo sidee maamada baaritaan u samayn karnaa maamada in la baaro waa laga maarmaa Jacfar aan baari karnaa oo laga helayo jawaab 50% ah wax walbana cadeynayso
maamulaad ma waxa ها سو قدم صفريس jamaal markaan dib u eegnay bilooyinka lasoo dhaafay howl shaqadaada aada ayay u wanaagsaneyd meesha aan kaa rabnay ayaad soo istaagtay annagoo taas ka duulayno waxaan go-aan ku gaarnay bangiga qaybta cusub la furaayo inaan adiga maamulo aan kaaga dhigno aad idinkaga mahadcelinayo waana ku faraxsanahay sharafayna ii tahay inaan meeshaas idinku matalo ان 17 sano la soo dhaafay inta aan ku guda jiray hawlaha bangiga iyo dhaqaalaha runtii dadka waxay weydiin jireen sideen ku noqon karnaa maamulo guuleysta anna waxaan ugu jawaabi jiray maamulo guuleysta haddii aad rabto inaad noqotid ugu horeyn waa inaad karti la imaadaa iyo weliba geesinimo midda keliya lama huraanka ahna waxay tahay daacadnimada in aad daacad u ahaato shaqaalahaaga iyo weliba shaqadaada annaga markaan shaqaalaha indheendheelnay runtii waxaa noo soo sawirantay adiga in aad tahay qofka keliya ee hawshan ka bixi karo waa haddii aad naga aqbasho runtii annaga waxaan kuu garanay in bangigaas cusub adiga aan maamulo kaaga dhigno sideed u aragtaa aadaan idinkaga mahadcelinaya waana aqbalay maasha allah okay hambalyaan ku leenahay garabkaaga allah galo hambalyo shaqo adagna way ku sugaysaa insha allah habboon ma xamili karta niyad kale niyad inta hore u ahaato khayr ku dambeynaysaa habboon waxay door biday inay qoftay ka hado intay reerkeeda ka helayso niyad walba ku yimaadana kama hor istaagaysa inay tallaabada xigta qaado habboon marra iska ilowday inay meel iska fadhiisato laakiin runtaa waxay tahay habboon inay daalan tahay hadday inta ka weyso meel kale ka helaysaa waan daalan maaha micneeda dhammaadka waxay ahaataba أنا وقت كست قرب كذا أنت يعني. أنت أديك إذا هيسوت أحب ما كهلا يا أديك سلوك كم. أنا أنت لا يا لا يا حد أنت أنا أبوي. هبان يدخل الشيء قبل سنة. قشوا ده هبان. أنت كده مع خان حسنين دونا. هبان أبى أصير صديقنا. هبان يدخل الشيء بليس. هبان نحاول نفتح هذا أيضا. لذلك أنت أسميك تواصل جعفر سيجارة وما تسنتع أبوه كان رالع وسك دوريك كان كنجلي maxaa kaloo sameeya baa habboon ana xitaa rajo ay gashay wixii soo baxan waa sugaynaa waa bixin ana keena anigu maanta dhin isoo raxay maxay akhyaari ani TV-ga ka balansanaa waraysiga dhiibi rabaa hay insha Allah استر maxaa kugu dhacay maanta ma xanuunsan tahay abaayo waa ka xumaa wixii na dhex maray waxaa ka codsanaya inaad iska kii cafisid qalad dambe inaa kaa gala marabi أنا حتى أقرأ لي نقطة
habeen wanaagsan saaxiibayaal magacaygu waa ayuub maxaad dareemi lahayd subaxyada ka mid ah haddii aad soo kacdo isla markaana aad ogaato in waalidiintaada aadan meel ku ogeyn ma is leedahay qof ayaa jiro 22 sano kadib ogaaday in waalidiintii uu haystay inay dhaleen aysan ahayn waalidiintiisii haddaba caawa barnaamijka waxaa marti inoogu ah habboon oo ku guda jirta ilaa waqtiga ay la hadlayno baadigoobka waalidiinteeda habboon soo dhawow aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad inoo soo hortay iyo weliba inaad naga aqbasho inaan waraysi kula yeelano soo dhawow waa dhawahay mahadsanid habboon maxaad dareentay markii ugu horreysay aad ogaatay waalidiinta aad u haysatay inay ahaayeen waalidiintaada inaysan ahayn waalidiintaada runtii ma ahayn waxaan filaayay muddo dheerna way igu qaadatay inaan aqbalo laakiin markii wax walba aan xaqiiqsado waan ku khasbanaaday waxaan ii fududeeyay arrintaa inaan aqbalaba dadkii aniga aan u haystay inay dhaleen ma ahayn dadaan weligay arkay sida la ii sheegay waxay ahaayeen dad 22 sano ka hor dhintay habboon muddadii aad ku guda jirtay raadinta waalidiintaada maxaa caqabada ah oo aad la kulantay wax ma nooga taaban kartaa dhibka ugu weyn aan la kulmo wuxuu ahaa in maalin kasta aan u tago qoys ay caruur ka maqan yihiin tobaneeyo reer aan la kulmay anigoo ka dhex raadinayo hooyaday iyo aabahay mar walbana way xanuujin jirtay xanuunka ayaga ay dareemaan markii ay ogaadaan aniga inaan ahayn gabadhooda culayska ugu weyn waxaan dareemay markii uu iga dhintay Aabe Ducaale si dhaban waxaan u dareemay inaan waayo wax walbo iyo rajo kasto aniga aan lahaa waayahay aniga iyo daawadayaashaba ma inoo sharaxi kartaa Aabe Ducaale qofku yahay Aabe Ducaale waa aabihii soo koriyey oo iga soo kaxeeyay xaafadii aan ka soo lumay waxaad inoo sheegtay Aabe Ducaale in uu soo kaxeeyay ma noo sheegi kartaa halka uu ka soo kaxeeyay Aabe Ducaale Allah u naxariistay wuuba igeeyay meeshuu iga soo kaxeeyay waxayna ahayd degmada Yaaqshid qaasatan xaafadda Tawfiiq habboon adigoo mahadsan ma inoo sheegi kartaa waxa kalifay ama sababay iyadoo lagu sheegi karo in aad soo luntay in waalid aan jirin lagu sameeyo muddo dheer markii la ibaafinay kadib waxaa la waayay cid soo sheegata sida caadigan dadkeena waa iska taqaanaa waxay jecel yihiin qofku wuxuu yahay inay ku caayaan marka aniga inta lagu cayn lahaa inaan ahay hooyo iyo aabba la'aan hooyo amran oo ah hooyada reerkii soo korsaday waxay ka doorbiday inay igu magac darto walaalkeed Guuleed sidaasaan ku noqday Habboon Guuleed mar dhowna waxaan ogaaday Habboon xitaa inaan ahayn oo magacaas ayada ii bixisay suuragal ma tahay in markii lagu soo helayay aadan ahayn qof soo luntay ee lagu soo tuuray markii horeba maxaa ka qaldan wariyaan su'aasha sax ma ahan sax ma su'aashaas please hal jooji maya macquul ma antaas When we talk about preparing for fatherhood, I think we often think of the tactical things about being a dad. You know, learning how to change diapers or holding the baby or maybe which products to purchase. You know, learning how to change diapers or holding the baby or maybe which products to purchase. Those are all great, but you're going to be a baby changing expert after a few times. You'll be comfortable holding the baby pretty quickly. And all those products that you're so worried about, most of them don't really matter. In being prepared, عبارة كل في السنة ديار جرو في عنا كل سنة هذا أنا ديار جرو يقص صوته إنك استشروا الله نتاع جعل قوتك هذا نواه وينام في عنه كنيست مرحلات كذا دار صدافة الحمد لله مركا قرستي هلا يابن مركا لوكي سقدها أو لو اسمان ديس دون
والله هذا ما سمعت طبعا دور هبينك قاعدين كوجيفو لك وسوي وكو غير دلقات كاس 10 دقائق ديار جروي أنا دبلو إن شاء الله يكون أصلا حاجة كفيرس أنا حكويدينا هبون باريتان كذا كتب رجدت ساعة بقول مهم إن شاء الله حكست غير كل ما نسى إن شاء الله خير mental preparation or the mindset that we have going into fatherhood is the most important part about preparing to be a father. In this video, I'm going to go over 7 tips to get you ready to be a dad.